saaxiibadii duurka ku jiray Cabdicays Laftigreen oo beedhabo iska xaadiriyay ciidamadii danaya guur rakaba ka soo baxay oo soo gaaray garoonka diyaaradaha Balidoogle ee gobolka Shabeellada Hoose iyo afhayeenkii Cabdicays Laftigreen oo mar kale ku goodiyay inay la wareegi doonaan beedhabo xogihii ugu dambeeyay xaalka deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya maxaa ka jira in taliya Amiin Madaruura uu dhankiisa beedhabo iska xaadiriyay xogahaas iyo xogo kala dheeraad ayaan daawaday muuqaalkan kuula wadaagaya dib muuqaalku ku soo gaaro shaqaray saaxiibada Ruusa Baralkan waa Bartama TV magaalada Beedhabo xarunta ku meel gaarka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya waxa lagu soo waramayaa inay soo gaareen tiro ciidamo uu hogaaminayo gudoomiyaha deegaanka Awdiinle ee gobolka Baay Ibraahim Lakay gudoomiyaha deegaanka Awdiinle ayaa lagu soo waramayaa in ciidamadan isagu la socday ay gaarayaan ilaa 50 askari ayna wataan gaadiid dagaal hub tirabeela ayna isku soo dhiibeen ciidamada daraawisha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ku soo gudaha magaalada Beedhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulkaasi waxa lagu soo waramayaa inta aysan Beedhabo soo gaarin mas'uulkan ciidamada uu hogaaminayo inay xidhiidh dheeraad ah soo sameeyeen taasoo keentay in lagu soo dhaweeyo magaalada Beedhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya dhan kale wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya war ka soo saartay askartan iyo sidoo kale gudoomiyaha deegaanka Awdiinle isku soo dhiibay ciidamada daraawishta koonfur galbeed Soomaaliya ku sugan magaalada Beedhabo ayaa qoraal ay soo saartay wasaaraddu waxay si cad u sheegtay in magaalada Beedhabo lagu soo dhaweeyay ilaa 150 askari uu hogaaminayo gudoomiyaha deegaanka Awdiinle waxayna sheegeen xubnaha gudoomiyuhu hogaaminayo inay ka dambeeyeen gadaamada xirre kala duwan ay soo sameeyeen laguna soo dhaweeyay magaalada Beedhabo qoraalkan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa lagu sheegay inay socdaan wada hadallo hubka dhigis lagu sameeyay laguna soo dhaweynayo ciidamada cadwa hogaankii hore maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicays Xasan Maxamed Laftigreen kuwaasoo qeybtay xilligan dibadjoog oo dhamaaleysanaya deegaanada duurka ee dacaduraadka magaalada Beedhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya sheekooyinka deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya intaana ka bixin ciidamadii ka tirsanaa danab ee saaka soo roqoonsay degmada Buurrakaba ee gobolka Baay ayaa lagu soo waramayaa inay saldhigteen garoonka diyaaradaha degmada Balidoogle ee gobolka Shabeellada Hoose Balidoogle ay ciidamadan wata gaadiid tirabeeli sidoo kale aad u fara badan ay soo gaareen halkaas ayna ay dhigteen maadaama ay ka mid tahay Balidoogle goobaha farakutriska ee gobolka Shabeellada Hoose ku yaala ee ciidamada commandoska danab ay saldhigyada muhiimka ah ku leeyihiin geesta kale afhayeenka hore maamulka koonfur galbeed Soomaaliya sidoo kale xubnaha daacaddu Cabdicays Laftigreen ka mid ah kuwa maaleysanaya deegaanada dacaduraadka magaalada Beedhabo ayaa goorsii horeysay dankii dambe maanta muuqaal iska soo duway waxa uu markaa ka hadlay xaaladda guud ee deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya ugaas Xasan Cabdi Maxamed afhayeenka hore Cabdicays Laftigreen waxa uu sheegay in magaalada Beedhabo ay dib u qabsan doonaan xilligan ay galeen diyaargarowgii ugu dambeeyay sidii horna maanta ay ka awood badan yihiin sidoo walku dhigay waxaana uu sheegay maalmaha soo aadan inay soo bandhigi doonaan cududooda ayna go'an tahay inay la wareegaan guud ahaan deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya si gaar ah magaalada Beedhabo oo xarunta ku meel gaarka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya iyo halka ay ku taalo madaxtooyada looga arrimiyo maamulka koonfur galbeed ugaas Xasan Cabdi Maxamed ayaa ka mid ahaa xubnihi la safray Cabdicays Xasan Maxamed Laftigreen dhamaadka bishii Maajo sanadka aynu ku guda jirno kadib markii Laftigreen xubnihi daacad waa si awooda Beedhabo laga saaray xilligaas wixii ka dambeeyay Laftigreen saaxiibadiisii ugu dhaw ka mid yahay wasiirkii hore amniga maamulkaasi ayaa ku sugan duraadka magaalada Beedhabo waxaana sidoo kale jira xubno kale oo ka tirsanaa maamulka Cabdicays Laftigreen in qeybtood ay ku sugan yihiin qaybo ka mid ah gobolka Gada ee maamulka Jubbaland xog walba ku soo kororta xaalka deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya ciidamada soo dhiibay hajabaada afhayeenka hore Laftigreen iyo ku soo kordha wararka iyo barnaamijyada dambe ee daawadayaal kula wadaagi doona hadduu Rabbi qadaro